qadimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad qadimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad odayaal soo dhawaada maanta waxaan joognaa hawdka sare bali weyn baan leeyahay joognaa waxaan ku soconaa magaalada Beledweyne Dhuqashay iyo Dhagaxdheer haddii Ilaahay ka dhigo shaasha qadeeyo magaaladaas kuma sii mar doonaa halkaas aad ka aragtaan waa kan wadada wata namarsha subscribe til like til comment tigana hanaga ilaawin qadimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad qadimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad qosolo ilka cadde farxadooda soo jabi soo eri jacaylkana goorsheegtu waa 7 subaxnimo halkan aanu marayna iyo bartilmaameedkani waa deegaanka beer ee xarunta gobolka Togdheer waxaanu sii jeednaa xagga iyo hawdka ina marsha qadimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad waxaanu ambabaxaynaa hawdka gobolka Togdheer annagoo sii mari doona deegaano fara badan oo ku teedsan laamiga iyo kuwa kale oo aan ku teedsanayn deegaanada laamiga ku teedsan oo sii mari doono waxaa ka mid ah deegaanka Inaaf Madoobe deegaanka Qoryaalo aanu ka beeri doono deegaanka Yasir oo isagoo hawdka sare ku yaala degmada Warcibraan Shanshacade Qaloocan kadib aanu tagi doono halka destination-keegu ahaa waa degmada Dhuqashay mashaariic biyo ballaarin loogu sameynayo degmada Dhuqashay ee xarunta gobolka Togdheer kadib aanu sii dhaafi doono xagga sare ama hawdka aanu sii mari doono magaalada Dheryeley kadib aanu sii dhaafi doono degmada Beledweyne xarunta gobolka Togdheer oo masaafo ahaan u jirta magaalada Burco ku dhawaad 130 ilaa 140 kiiloomitir in ku dhow daawasho wanaagsan qadimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad ugu dambeyn waxaanu soo gaarnay degmadii Dhuqashay oo aad tan idin muuqata shaqo dheer oo aanu ka qabanay halkan waxaanu la qaadanay waqti dadweynaha ku dhaqan magaalada annagoo la shaacaynay isla markaana xal wareysanay kadib ogaanay baahiyaha ay qabaan ee dhinaca biyaha waxaanu ugu bushaaraynay mashaariica magaaladu sida caadiga xooluhu waxay ka cabaan ceel gacmeedyaa oo leeyahay shallow wells xaafadlaad lagu yidhaahdo shallow wells isla markaana uu tartiibalkoodu uu jiro meel dhow ayaa geelasha laga waraabiyaa laakiin magaaladu waxay leedahay dhaam weyn ama xorfadaasi oo loogu samayn doono biyo ballaarin magaalada iyadoo mashaariicaha la soo gaadhsiin doono koonayaasha magaalada iyo magaalada dhexdeeda waxaan waqti la qaatay geelasha iyo dadka waraabinaya ee jooga ceelasha ama ceelalyada annaga oo waqti aan la qaadanay kadib waxaan la waraabinay geelashii waanu la fulinay magaalada waqti baanu ku qaadanay magaalo degan oo dadkeedu aad iyo aad u fiican yahay bay ahayd isla markaana si weynna loogu soo dhaweeyey kadib waxaanu uga ambabixi doonaa geedkan la gubay sidaad ka aragtaan wax leh meegaag waxbaa lagu cushaa culay dhulku waa iska abaar oo cawlaanka ah kana jeerin baa leeyahay kaa qudhac baa leeyahay kan gabagabood baa leeyahay sameynaysa waxaana loo sameeyey biyo ballaarin iyadoo systemka loogu soo xiray dhaam weyn oo magaalada lahayd isla markaana wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ka hirgelisay kadibna loo samayn doono biyo ballaarin magaalada dhexdeeda
shaqo kooban aanu ka qabanay halkan waxaanu uga ambabaxnay hawdka sare annaga oo sii dhex maraynay dhul aad iyo aad u qurux badan islamarkaana geeduhu iminka ay caddaadeen maadaama lagu jiro xilli jiilaala laakiin xoolaha iyo dadkuba aanay baahi qabin biyo iyo cuntaba way haysteen xooluhu aadna way u qurux badnaayeen deegaan ahaan meeshani waa meel aad kuu soo jeedinaysa kalaymadka halkan qorraxdu waxay ahayd mid aad u kulul maadaama lagu jiray xilli xagaaya adimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad adimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad ciidda dhulkan waa mid aad u cas oo aan u ekayn ciidaha kale ee gobollada dalka ciidda halkan waxaad moodaa in lagu daray basbaas aad bay u casayd xooluhu waxay ahaayeen kuwo cabba oo geedihii sannadka baxay iminka ayay caddaadeen sidaa darteed ayaa xoolaha loo waraabinayay safar dheer oo aannu galnay magaalada beledhiig waxaannu sii dhex marnay degmada dhoqoshay inta u dhaxaysa iyo dharyeley waa ilaa 30 kilomitir halka ay magaalada beledhiig iyo magaalada dharyeleyna isku jiraan ku dhowaad ilaa 14 kilomitir ugu dambeyn waxaanu soo gaadhnay degmada beledhiig ee xarunta gobolka togdheer halkaasi oo aanu soo indhaindhaynay mashaariica horumarineed oo uu ka mid yahay riigga magaaladan ay ka cabto adimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad daawadayaal iminka waxaa joogaa degmada beledhiig ee gobolka togdheer ee xuduudda kala qaybisa Itoobiya iyo Somaliland halkan waa Beledweyn waxaan joogaa riig ay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyo magaalada ka hirgelisay si looga raysto oomanaha iyo abaaraha dhaadheer ee soo noqnoqonaya iyo bila'aanta halkaasaa iga dambaysa waxaa taala solarti ceelka biyaha lagu dalaacayay halkaa isagana waxa saaran taank weyn oo dhowr iyo intaasoo foosto qaadaya sidoo kale halkaa waxaa isaguna taanki kale halkan iga dambaysa waa ceelkii ay wasaaraddu qoday ee biyaha magaalada siinayay halkan dambe waxaa saaran isaguna ijiin haddii solartu shaqayn weydo biyaha lagu dalacayo marka kalena si shidaalkii badnaa iyo qarashaadka looga raysto shidaalka solartaasaa la isticmaalayaa halkaa dambe waxaa musqulay si nadaafadda meesha loo kor loogu qaado halkaas kasii shishaysana waxaa keesyadii ay dadku ka cabayeen dadka deegaanku ay xoolahooda dhaamunkiiyo waxaa caagadaan ay ka dhaansanayeen sidoo kale halkaa waxaa iyaguna ah oo faniskan ama taarkan solarka iyo qolkan ugu xidhay dibadda uga baxsan keesyooyinkii dararkii ay xooluhu ka cabayeen islamarkaana waxaa geenaya tuumbooyin marka loo istaadho xoolaha halkan waxaa qolkii weeshmaanka ee sistamka uu ceelku ku shaqaynayo oo dhan uu ku xidhnaa ayaa halkana iminka jiinka istaadhan solar time-ku yara shaqayn weydo aanu hagaajinaynaa kadib waxaan qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo magaalada Burco subscribe-ta like-ta iyo comment-iga noogu roonaada aad iyo aad u mahadsantihiin meel kasta joogtaan assalaamu calaykum hooyo عليكم السلام magacaa فاطمة علي بالله يدها faadmo cali halkan ku sugannahay waa beledhiig magaaladu waxay ka cabtaa riiggan magaalada ku yaala bal ka waran biyihiisa علكم بيس وبياض وقيمة بدل haye وبيا معان sax دعاء إياها بليرة وحنو فرنا وسيركي بيها نصف ذي haye وعلى مريحة وسير كان محاد هذا يهم بليرة يبغى أنت بدل ودرنا haye وسيركي علكم لو بشغي وي haye بيا معان وعنو السمسم كوني وسير كاس بشغي haye وسير كاس وهم بليان بدل بانو ونقوم ذي barkadii aad biyaha ka soo dhaansan jirteen iyo keeryoomada ma ka raysateen هذه Hey. وكرسنا بيه دولت كان كعبنا يقولي هرتو ذي نوم ريال marka magaaladu tuushashbaad ku meedhataan iminka warbiya waxaan ku leenahay ayaduna tushashada iyo dee qasabada iyo yaalaabtii oo noo soo socotaa halkaa biyaha la soo gaarsiiyey magaalada dhexdeeda magaalada dhowr goobad baa dee biyo ku jiraan oo imika la soo daynaya halkan horteeda maraya beebabka halkan mara gurigayga hortiisay maraya
ما شاء الله biyo aad u qiimo badan baanu ka cabnaa marka barkadii imika waad ka dayseenba waanu iska dayna ilaahay wax naga furtay uuna siiyey iyo dhaamkiiba iyo dhaamkii iyo wixiiba waanu dadka oo dhan baa magaalada oo dhan baaba biyahan la yaaban ما شاء الله marka ceelku biyo badan yahay mise biyihiisu way yiri ilaa xad ceelku ceel biyo badan buu hadee mar hawl ku timaado mooyaane biyihiisu dhadhanka ka war acuudu billaah wax loo dhigaaba ma jiraan oo meesaxo saasaad ugu mayranaysaa saabuunta iyo wuxuu diidayaaba ma jirto reer bildig waa kuwan casacasaadeen dadka kale ma kidin imika waa biyo diidayaaba ma jiro intaanu biyaha helay waxaan ku dhaad baan u dhalaalayna soo maaha ما شاء الله biyaha geesay macaan ee lagu meerin jiro saad ka arkaysan waa kioskan waxa loogu talagalay dadku ka cabaan adimada ku soo bood gacmaha ubaxa ku soo qaad halkan baan ka qadin doonaa haddii ilaahay ka dhigo insha allah kadib waxaan noo bixisana magaalada burco xarunta gobolka togdheer halkaa saaran waa triig magaalada joogna waa bilidhiig triig baxay la moodiyey iminka waxaan ku shubanaynaa gaariga ayaanu shidaal ku shubanaynaa gaarigan wadanaa wuxuu ku shaqaynayaa naafto naaftadana haamahan baa lagu iibiyaa waxaana lagu qiyaasaa tanagana wuxuu qaadaa 20 litir oo shidaal ah ayuu qaadaa maadaama aanay kaalin ama bam aanay magaaladan lahayn foostooyinkan baa shidaalka lagu iibiyaa bamkaana waa lagaga soo saaraa kadib bamka marka lagaga soo saaro tanagaasa lagugu cabirayaa markuu buuxsamo waxa lagugu shubayaa gaariga waxaa jira cabiro kala duwan ay leeyihiin mid 10 qaada mid 5 qaada kan imika aan ku shubanay wuxuu qaadaa markuu buuxo 20 litir oo shidaala kadib gaariga ayaan ku shuban doonaa maadaama aanu ilaa maanta wareegayno shidaalkii naga yaraaday waxaanu bixi doonaa xarunta gobolka togdheer ee magaalada madaxda burco safarkan waxaan ku sii mari doonaa deegaanada taalabuur shansha cadde iyo deegaano kale oo fara badan waxaanu sii marnay dhaam weyn oo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ka hirgelisay deegaanka qurcagaabta oo u dhexeeya magaalada shansha cadde iyo magaalada heere dhaamkan oo meel wacan maraya ayaanu indhaindhayn kusoo sameynay si fiican u soconayay oo shaqo wacan laga qabanayay isagoo imika muddo bil ku dhow socday meel fiican buu maraya waa dhaam aad iyo aad u weyn weeyaan oo loogu talagalay inuu wax weyn ka tari doono baahida biyaha ee ka jirta hawdka gobolka togdheer si fiican u socda daawasho wanaagsan kadib waxaanu u sii socon doonaa ilaa iyo magaaladii burco subscribe-tii like-tii commentiga hana dhaafin aad baad mahadsantihiin